السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نوgu xiran dhamaantiin ma soo dhawaada videoan maanta waxa aan ku eegi doonaa sida ChatGPT lagu sameeyo website iska basic ah ChatGPT waa ka hadalnay hore waa uga hadalnay cashar baan ka sameynay description hoos ayaan ku dhigi doonaa linkiga raac wuxuu yahay iyo sida mataqaana ciwaan lagu sameystaba maanta waxaan isla eegi doonaa marka qaabka aad website basic ugu sameyn lahayd just code inta waxaan ku qoranaa kaliya text kadibna code ayuu siin doonaa code-ka markuu na siiyo ayaan waxaan isku dayi doonaa code-ka inaan ku furno Visual Studio Code inta copy-sano kadibna si mataqaana hadhow uu noogu furmo browser-ka okay so waxaan iskaga qorayaa write code for a business agency website and home page in HTML and CSS so click hadda markaan siiyo code ayuu siin doonaa code-ka markuu na siiyo marka waa iska sugi doonaa ilaa maaragtay labada code noo dhameyn doona sababtoo ah HTML page ah uu siin doonaa iyo CSS ba saada arki kartidba inta waxaad arkaysaa hadda inuu noo wado يعني إنه نودي سيبا HTML structure كذا أوكي مستقبل كوحو كودس دونا ويب سايت وين إنكس تعد ويب سايت دي آد وين أنا قسمي لكن ويب سايت إسكا حوغا عوال قسمي runtina aad buu ku anfacaya haddaad ChatGPT mataqaana haddaad garanaysa sababtoo ah su'aalo badan ayaa weydiin kartaa waxyaabo badan ayuu kaaga jawaabi doonaa xitaa Soomaali haddaad ku qortid mararka qaarkood xataa haddaad gelisid erayaal Soomaali ah waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo erayaal saxsan marna waa dhici kartaa in waxyaabo aan maaragtay xoogaa aan saxsanayn inuu ku siiyo laakiin waan isla arki doonaa insha Allah okay so page-kan hadda waxaan sameynayaa inaan sii copy-isto xaggaas aad ku dhufan kartaa ama waxaad dhigi kartaaba saas aad dhigi kartaa copy-in kartaa laakiin intaan iska yar fiican aan ku dhufto kadibna Visual Studio Code-ka aadaya isticmaalaya okay so hadda waxaad arkaysaa inaan inta kusoo copy gareeyay page HTML intaan hadda code-kan diyaarsan waxa aan qoray maaha just on mataqaana ChatGPT oo noo qoray okay so waxaan ku laabanayaa marka in uu haddana ونو دمية كان CSS أوكي كي CSS نسوق هذه هذنا كده من واحد سمينا يا الآن كل لابتو page كان أوكي ماشي أنا قدام بيسحوا إير خلنا جدنا أوكي سو مركا أنا كحرنا وايه أوكي already هو كحرين هيبة yes style okay so meeshan style Hispanic baan ka dhigay I think inaad bal aan fiirino live server kan ku furaya marka okay waa kana CSS hadda nagu ma jiro sababtoo ana yara khalday sababtoo meeshan waxaan ku qoray styles.css laakiin style kaliya aan ku qoray ahead leesh waxaan sameynayaa inaan dhaho iska dhiliidaba okay so mid cusub ayaan sameynayaa style.css kadibna waxaan sameynaa inaan saas dhaho okay so hadda aan isla eegno marka waa kana marka hadda waxaa arkaysaa website-kan diyaarsan oo hadda saan xoogaa u yar sharaxan inaan anagu qorin oo ChatGPT baa noo qoray marka hadda waxaa arkaysaa inuu CSS-kan ugu daray fiir xagaan menu saas ugu kala mataqaana dhigdhigay inta background buu ugu daray حتى في ربطان كان get in touch wuxuu nagu sameeyay maaragtay background iyo calaamad qurux badan ka dhigay textigan meesha saas nagu qoray inkastoo kuwan uu sahabeyn laakiin xoogaa website-ka maaragtay xoogaa wax yar inta hore uu noo toosiyay marka aad code-ka dhan mid aan ugu qornay maaha ChatGPT oo noo qoray marka ChatGPT runtii caadi maaha waxyaabo badan ayaan runtii aniga hadda aan ka faa'iiday kamid tahay maaragtay xitaa website-da mararka qaarkood xataa su'aalo qaar ku saabsan programming ka weydiin kartaa even xataa mararka qaarkood xataa su'aalo Soomaali ahaan waa ku weydiin kartaa uu kaaga jawaabiyaa laakiin waxa fiican mar walba waxa weydiinaysa inuu noqdo wax faa'iido u leh maaragtay waxaaga sababtoo haddii waxyaabo qaar iska mala yacni ama waxyaabo aan loo baahnayn iska weydiisid
يعني dee faa'iido kuguma jirtaba. Marka bahalkan hadda inta badan dee waxaa fiican ma aragtay dhanka fiican looga faa'iidaysto. Marka intaan ayaan jeclaystay inaan maanta isla wadaagno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.